Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta waa idin salaamay meel walba aad dunida ka joogtaan. Magacayga waa Xafsa. Haddii tahay markii kugu horreysay aad janaalkayga soo booqanaysid fadlan subscribe ii saar. Ha iga bakhiilin, waa lacag la-aan second kugu qaadanaysaa an dhiirigelin ii tahay. Hore hadda ila joogtana waa kaaga mahadcelinayaa. Maanta waxaa jeclaystay ina idinla qaybsado bariis iyo hilibkiisa si fudud loo sameynayo macna basbaaskiisa insha Allah isla socod wanaagsan. Hilibka wuu soo karkaray 4 koob oo biyo ayaa dabka la saaray. Biyo kaligiis baa la saaray, wax kuma darin. Hadda wuu soo karkaray. Hadda waxaa ku dari doonaa xawaajiyadii, toon aan soo jarjaray iyo basal aan soo jarjaray. Waa xabad basal iyo 5 xabo toon aan soo jarjaray ku daraa. Waxaa kaloo ku dari doonaa cusbadii iyo maraq digaag iyo xawaajiyadii. Kadibna waa dabooli doonaa ilaa uu kasoo karkaro hilibka bislaado. Waayo maraqa rabaa, maraqa inaa bariis ku biyeystaa rabaa. Bariis macaan badan oo noqona marka maraqa lagu kariyo. Hilibkan insha Allah waxaa sina foornada ayaa gelin doonaa si uu u guduuto. Laakiin koo maraqa rabaa inaa ka baxsado. Hadda waa daboolaya markuu soo karkaro kadib aa isku soo laabanina insha Allah. Badan daqiiqo dib ayaa soo laabtay si fiican oo u karkaray. Hilibkan waa biseel inkastoo biseel aadna ahayn waayo dab labaad ayuu maraa. Foornada ayaa geli rabaa. Hadduu iga bislaado oo foornada sii geli hadhow wuxuu noqonayaa hilib jileec zaid marab inuu noqdo dhexdhexaad inuu ahaadaa rabaa. Hadda waa ka dejinayaa hilibka ayaa ka bixinaya. Hilibka foornada ayuu aadi doonaa. Waxaa marin doonaa shiid iyo qudaar waxaas. Maraqna meel ayaa dhigan doonaa. Bariiska ayaa ku biyeysan doonaa. Bariiska hore ayaa usii diyaarsaday. Biyaha la dhigtay muddo 1 saac oo ila yaalay. Bariiska markaa biyaha la sii dhigtay intaa karin ka hor hadhow wuxuu ku noqonayaa bariis dhaadheer dab badanna ma kaa rabo, biyo badanna ma kaa qaadanayo. Hore kuugu bislaanaa bariiska waa inaa biyo la sii dhigay intaa la karin ka hor. Waxaa la soo gaaray xilliga dalacaleen bariiskeena. Meesha saliid ayaa igu jirtay xabad basal oo si yar soo jara ku shubaya. Saliida ma kululo laakiin dib ma laha, waa daboolaya markay soo karkarto ayaa waxyaabaha kale ku dareena insha Allah waa isla arki doonaa. Shayni hadda way noo shiilantay. Waxaa ku dari doonaa tuun. Kadibna waxaa ku dari doonaa xawaajiyada. Xawaajiyada waa optional. Waxaa jeceshahay ayaa ku darsanaysaa. Waxaad rabin waa ka reebanaysaa. Qasab ma aha. Waxaa ku darsada inaa ku darsatid. Bariiskan aad iyo aad u fudud yahay. Hadhowna bariiska ayaa ku dari doonaa. Kadibna maraqii aan hilibka kasoo reebta ku biyeyn doonaa. Waqti badan ma kaa qaadanayo waayo bariiska biyaa la soo dhignay. 10 daqiiqo ku bislaanaya. Waana bariis furfur oo dhaadheer oo kaaliska arag ku soo baxa. Hadhowna wax yar kadib markuu soo karkaro waxaa ku dari doonaa khudaarta cagaaran iyo sabiib iyo shacfaraan oo sharaxaad camal u isticmaal doona insha Allah waa isla arki doonaa. Inaba caadi ma aha sida hadda u karsatid hubaalo baa ka helaysaa. Hadda bariiskeeni wuu noo soo karkaray. Bariiskii biyo isla ekaaday. Hadda waxaa ku darayaa khudaarta cagaaran. Kadibna waa dabooli doonaa. Sabiib ayaa ku dari doonaa. Kadibna waa dabooli doonaa. Dabkana waa u kaabina markuu sidan kale u soo karkaro. Dabka waa low inaa ugu dhigtida. Haddii kale soo biyaha ku jiro oo digsina kaaga dhagaa bariiska.
Hadda bariiska intuu noo karkaraayo hilibka ayaa foornada gelinayna. Meeshaas waxaa igu jirto shiishiid oo xawaajiyaal iyo cusbo ah kusoo darsaday. Hilibka ayaa marmarinaya. Baradho oo soo jara mari doona aluminium ku daboolaya. Waxaa gelinaya foornada. Hilibka already waa biseel. Wax yar un baa u dhiman. Biseel zaid ma aha. Wax yar un baa u dhiman. Wuxuu ku jiri doonaa adi qadar 30 daqiiqo ah. Kadibna waa diyaar. Waa kasoo saari doonaa insha Allah. Waa isla arki doonaa siduu kusoo baxo. Hadda bariiskeeni wuu soo bislaaday. Wax yariis oo qoyaan ah ku jirto. Biyaha ma wada gursan. Wax yariis ah ku jirto inuu huuris bas un baa u dhiman. Hadda waxaa ku shubi doonaa saafraanki. Kadibna waa dabooli doonaa. Waxaa huuri doonaa qadar 5 daqiiqo ah. Kadibna waa diyaar bariiskeeni waa soo guri doonaa. Saxanka ayaa soo saari doonaa. Insha Allah waa isla arki doonaa. Hadda 10 daqiiqo kadib bariiskeeni waa diyaar. Sidaan quruxda badan furfurku ku soo baxay wuu huuray. Waa diyaar. Hadda dabka waa ka daminaya. Waxaa sameysan doonaa basbaaski oo ku cuni lahayn. Kadibna saxanka ayaa soo saaraya. Hilibkeenina waa bislaaday. Waa kasoo bixiyay. Insha Allah markaa soo gura wada arki doonaa. Hadda waxaa sameysanaynaa basbaaskeenii. Basbaaskeenii wuxuu ka kooban yahay meesha waxaa ku haystaa xabad basal oo soo jarjartay, jab barbarooni ah, kabsar caleen, 4 xabo oo basbaas, 4 xabo oo toon ah, nus qaado cusbo ah iyo xabad liin oo soo kala gooyay. Intaasuu ka sameysnaa doonaa iyo nus koob oo biyo ah. Kow hadda waa isku dardaraya. Biyaha ku shubi doonaa. Kadibna waa shiidi doonaa. Kadibna liinta gadaal ayaa ugu dari doonaa. Basbaaska hadda sidaan u sameysay inaba caadi ma aha. Basbaas kaal iska arag oo macaan badan oo kusoo baxa oo caraf badan.
Hadda basbaaskeenii waa soo shiiday, hadda liin dhanaantii ayaa soo miiray, liin dhanaantii ayaa ku daraaya. Kabacdina waa isdhexgelinaya, kadibna baaquliga ayaa kusoo shubaa. Inaba caadi ma aha basbaaskan. Haddaad sidan u samaysatid hubaalo waa ka heli doontaa. Ugu dambeyntii sidan quruxda badan ayuu basbaaskeenii ku soo baxay. Hadda waxaa soo guri doonaa bariiska insha Allah. Ugu dambeyntii sidan quruxda badan ayuu ku soo baxay bariiskii hilibkeena. Inaba caadi ma aha, bariis furfur oo dhaadheer oo xabadba xabad ku dhageyno ku soo baxay maasha Allah. Mooskeenina kama maqna meesha ina Soomaalina si lagu ogaana. Hadda ilaa halaan soo gaarto bagaaga mahadcelinaya. Fiidigu hadduu ku cajibo fadlan like iyo saar. Ray haddaa qabti commenti-ga noogu soo wadaag, asxaabtaada la sii wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.